xaflad si heersare loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay mudane xildhibaan Shariif Maxamed Shariif Cabdallah oo ka mid ah xildhibaanada qaranka Soomaaliya ayaa waxa lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkani Mareykanka. xafladaasi waxa ka soo qayb galay beelweynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo isugu jira qaybaheeda culumaa u diinka, aqoon-yahanada, waxgaradka, haweenka, dhalinyarada iyo waliba duqeyda iyo waxgaradka Soomaaliyeed. munaasabadaasi ayaa waxa ku dhacday jawi aad iyo aad u heersareeya iyadoo inta badan looga hadlayay bal waxqabadka geyiga Soomaaliya. qaar kamid ah mas'uuliyiintaasi oo hadlayay waxa wararkoodii kamid ahaa walaalkay xildhibaan Maxamed qiimaha goonida oo u leeyahay Soomaaliya xildhibaannimada ka sukow asigoo xildhibaan baahayn wuxuu ka soo shaqeeyay dawladda hoose laga bilaabo 1900 iyo 73 ilaa 1990 buu shaqeynayay yani waajibaadkii ka saaraa yani الحياة المدنية ayuu aad iyo aad ugu caan ka yahay wuxuu ka shaqeyn jiray يعني dadka maartay siyaabaha ta loo tirin karaayo maanta Soomaaliya aad bay u baahan tahay hadii la yiraahdo election iyo waxba la galaya dadaan is aqoonin dadaan tirsanayn markii la waxba dooranaysan dib badan baa laga marayaa from 1973 ilaa inta wuxuu soo bartay ama uu yaqaana xataa sida sahlan dadka loo tiri koobi karaayo ayuu bartay una ka shaqeyn jiray dawladda hoose waa taqaanaan waa shaqadeeda ayaa kamid ah waa qof laga faa'iideysan karaayo hadii hadda la leeyahay Soomaaliya one man one vote waxbayba ka fikiraysa yani asiga oo kale waa aragnimadiisi waa laga faa'iideysan kari lahaa aragtidaadu waxay noo tahay dhulkii iyo dadkii iyo calankii iyo Soomaalinimadii sida kulay qaar badan oo iga dambeeya dhihi doonaan jaaliyada Soomaaliyeed oo ku nool state-kan waxay gaaraysaa 100,000 iyo in ka badan waa dad Soomaali ah isugu xiran Soomaalinimo jecel Soomaalinimo maadaama reer Minnesota qayb weyn abaaraha ay ka qabteen haddana ay wadan campaign badan in asna culayska ku sii saartaan dadaalkooda inuu 200 jibba dakanooyinkeeni horo daqad laga tuuro oo kala dambayntiyo amiga dhidibka loo duugo fursad dahabi ah idin hortaal doqoni waa mooge طبعا فرحad weyn ay tahay inaan fursadan oo kale aan helo oo aan idin la wadaago akhbaartii dalka dadka degan Minnesota iyo Minneapolis iyo agaarahan waa meesha ugu caansan uguna maxaan ku raahdaa wax tar badan uguna dhaqaale badan weeye marka inaad ka qayb qaadataan shilinkiini ama dollarada isticmaashana dollarkiini inaad ka qayb qaadataan dib u dhiska dalka ra'yigiini inaad ka qayb qaadataan maxaan ku raahdaa dib u heshiisinta iyo maslaxada dalka meeshii naqdiga maxaan ku raahdaa xoog la saari jiray dhaleysha aad baa loo arkaa waxay la tahay kaalintiini xaggaas aan ugu ciriirinayna siyaasadda iyo waxaas dad ba halkaas u joogay u soo xareystay adinka kaalintiina ha noqoto koow horta in dhalinyarada iyo dadka halkan jooga is dhisaan oo shaqeeyaan laba inay ka qayb qaataan si positive inay uga qayb qaataan طبعا waa la ogyahay wax kasto dhaca halkan ma ogsoontahay waa la falgalayay dibka jira maslihi dadka dibadaha jooga kama qayb qaadan isma leeyo waa intay rabtaa la kaate waxun ba dhici jiray marka taasna waxaan leeyahay sidii la idinka bartay inaad meeshiina ka sii wadaan aad baan idinku mahad celinayaa Kim Umar Jimcaale warbaahinta qaranka Soomaaliya Minneapolis Mareykanka